السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة كريم سود وهذا الدعوة إلى ميل كستان جوكتان بهالكني ومعهد البشرة waxaan rabaa maanta inaan idin soo gudbiyo dad family oo guri jooga qaabku odaygu u tujinayo familkiisa waxaan ka wada xaajiga xaaskiisa wiilashiisa gabadhiisa markuu rabo inuu guriga ku tujiyo qaabku u tukanayo waxaan ka wada qaab kale markaan u dhigo xaajigu markuu salaada isku taago halkee wiilkiisu ka istaagaya keligii ah halkee xaaskiisu istaagaysa halkee gabadhiisu istaagaysa halkee wiilashiisa badan istaagayaan halkee gabdhihiisa badan istaagayaan qaabkaasaan rabaa inaan idin tuso ma sharaxayo ma faahfaahinay laakiin qaab sawir ahaan bas ayaan rabaa inaan idin soo koobo magacaygu waa maxamed soo dhawaada markaa halkan waxaa inooga muuqda sawirkan waa xaajiga iyo xaaskiisa halkan waxaa inooga muuqda xaajiga iyo xaaskiisa iyo gabadhiisa halkan waxaa inooga muuqda xaajiga iyo saddex wiil oo ka dambeeya halkana waxaa inooga muuqda xaajiga iyo wiilkiisa halkan asana waxaa inooga muuqda xaajiga wiilashiisa iyo gabadhiisa waxaan rabaa shantaas sawir inaan mid walba idin fahansiiyo mid walba korkiisa waxaa ku qoran cidda tukanaysa iyo cidda tujinayo halkan waxaa ku qoran salaatu zawji maca zawjatihi waa salaada uu zawjku uu tukanayo uu xaaskiisana tujinayo waan aragnaa kan waa zawjkii ama xaajigii sijaayad gooniya u taala gooni buu taagan yahay tani waa xaaskiisa waa zawjadiisa ayadana sijaayad gooniya u taala way daba taagan tahay xagga kama xigto xaggan kama xigto ee dabadiisa ayay taagan tahay qaabkaasi waa qaabka saxda ee sunnada nabi maxamed ay ahayd nabiguna uu sameeyay uunayna amray in uu ninku markuu gabar tujinayo ama xaaskiisa ha noqoto hooyadii ha noqoto eedadii walaashii ha noqoto gabadhu saw dhalay ha noqoto qaabkaasi uu istaagaysa dabadiis xagga ka istaagi mayso xaggan ka istaagi mayso isla simi mayso gada dabadiisa ayay isku beegaysaa halkaasi markaa waa xaaji iyo xaaskiisa halkani waa salaatu zawji maca zawjatihi wa ibnatihi ama wa ibnati waa salaada uu tujinayo xaajigu xaaskiisa iyo gabadhiisa xaajiga waa kan waa keligii sijaayad baa u taalla gadaashiisa waxaa taagan laba dumar ah mid walba sijaayad gooniya u taalla muhiim maaha inay mid walba sijaayad gooniya u taallo ee isku sijaayad bay ku tukan karaan laakiin waxaan rabaa inaan tilmaamo inay labada gabdhood sidaad sawirka ka aragtaan ay dhinac istaagayaan xaajigan ay ka dambeeyaan dhinaca midigta noo dhinaca bidixda noo laakiin gadaashiisa ama xaggiisa dambe istaagayaan labada dumarkaana way isdaba taagayaan isagana keligii ayaa halkaa taagnaana wuu tujinayaa markan waxaa la mid ah ninku markuu gabdho tujinayo gabdho badan waa la mid hooyadii walaalihii eedooyinkii habaryarihii faamilkiisa qaraabo badan markuu tujinayo halkan ay istaagayaan markay dumar keliya yihiin isaguna halkaas ayuu keligii istaagayaa qaabkaasna markaa qaabkaasi waa nin iyo hal gabadh qaabkana waa nin iyo laba gabdhood iyo ka badan halkan waxaan arkaynaa salaatul abi maca ibni waa salaad uu aaba tujinayo wiilkiisa oo keliya waan arkaynaa aabihii waa kan sijaayad baa u taalla wiilkii wuxuu ka istaagay dhinaca midig isagana sijaayad baa u taalla way isla siman yihiin kama soo dambaynayo kamana hormaraya wuu isla simaya sidaasi waa salaada uu aabuhu uu tujinayo wiilkiisa oo keliya sidoo kale waxaa la mida nin walba wiilkiisa macnaha markay laba nin wada tukanayaan mar walba ninka imaamka ah ayaa xaggan soo maraya xagga bidixda xigta ninka qofka imaamka noqonaya ee salaada tujinaya ayaa maraya mar walba dhinaca waxaa maraya qofka la tujinayo wey maadaama hadda dad family ay yihiin oo gurigooda ku wada tukanayaan aabihii waa kan wiilkiisina waa kan markaa waa isdhinac istaagaya halkan waxaan arkaynaa salaatul abi maca abnaa'ihi dhukuur waa salaad uu aaba tujinayo wiilashiisa oo keliya gabdho kuma jiraan waa wiilal keliya waxaan arkaynaa wiilashii haddeer saddex wiil baa odayga ka dambeeya inay saddexduba ay daba taagayiin aabahood xaajiga wakaa ama aabihii wakaa sijaayad gooniya u taala salaadiibuu ku jiraa waxaa ka dambeeya saddex wiil oo salaada ayaguna ku jira way ka dambeeyaan sidaa waxaa la mida laba wiil saddex wiil afar wiil shan wiil jamac iska dhan marka uu ninku tujinayo imaamku keliga ayaa halkaa taagan dadka kalena xaggiisan dambe ayay taagan yihiin weeye markay laba qof yihiinna waa qaabkaas markay laba qof ka badan yihiinna waa qaabkaas halkan waxaa ku qoran salaatul abi maca zawjatihi wa abnaa'ihi dhukuur waa salaada uu tujinayo aabbuhu wiilashiisa iyo xaaskiisa halkan waxaan arkaynaa saddex sawirays daba yaala kaa ugu horeeya waa imaamkii waana xaajigii
waxaa ku xiga 3 wiil oo dhalay oo ku daba tukanaya, waxaa ku sii xiga xaaskiisa ku daba tukanaysa. Halkan waxaan soo dhigi karnaa gabadhiisa dumar oo marka uu tujinayo xaajigu ama odaygu uu tujinayo wiilashiisa iyo gabdhihiisa iyo xaaskiisa. Isagu safka waa keligii, waxaa ku xiga safka wiilashiisa ama ragga, waxaa ku xiga safka dumarka weey. taa macnaheedu waxa weeye isma dhexgelayaan wiilasha iyo gabdhuhu maadaama ay dad family yihiin oo hooyo iyo wiilasheeda ay tahay, aabba iyo wiilashiisa iyo gabadhiisa xaaskiisa ay tahay, dad aabbi hooyo iyo isku wada. marka salaada lagu jiro isma dhexgelayaan. ogow ayagoon salaada iska jabin oo aan salaada iska jabin ayaysan haddana isdhexgelayn. imaamkuna gooni u istaagayaa, safka wiilashuna gooni u istaagayaan, safka gabdhuhuna gooni u istaagayaan weey. waxaan jecelahay hadda inaad fahanteen qaabka uu xaajigu faamilkiisa u tukanay noocyada kala duwan. halkani waa Macadul Bushra mar kale. sii share garaa videoga haddaad nagu cusub tahayna channelka Qarash Media subscribe noo saar. labadeeda page Facebook Qarash Media iyo Macadul Bushra follow da. sidoo kale leegta naga ilaawin inaad sii share garayso aad la wadaagto asxaabtaada, aad bay muhiim u tahay. dad badan ayaa jira baahi u qaba qaabkan inay fahmaan. aad baad u mahadsantahay. Assalaamu calaykum.